mararka qaar waxyeelada waa mid aad u daran. aarka dibad joogga ahaa ayaa soo noqday. waa mid xoog leh, soona dhowaaday. balse markan waxaa la socda walaalkii oo gacan ka siinaya weerarka. waxay noqotay mid qabowday oo cabsidu ay ka dhigtay paralyze. hooyad waxay isku daysay dadaal kasta ay ku maran habaabinayso si ay u badbaadiso iyadoo u hogaaminaysa dhanka kale si ay ugu leexiso iyada. balse iyaga ma aha mid arrintaas u muuqata. waa mid aad u yar, wax qiimana aan ku fadhin. keliya ah dhaxalkii aabbaheed, waxayna doonayaan inay nafta dhaafiyaan. isla markii ay eryadeen iyada, mid ka mida walaalaha ayaa u soo noqday aabbaheeda. midka kale waxa uu jiraa dhanka hooyadeed. iyada waa inay la qabsataa amaradan cusub. safarka aabbaheeda waa mid dhammaystirmay. kadib marka uu galay dagaal cad, way uga dhammaatay halkan. waa markii ugu dambaysay ay aragto aabbaheed. mana aha mid dib u soo noqon doona.